وات هم حال الباب كي صدح حنو قراعصه ما قليس مايا الباب كي ما هو مقالك كين markii ugu horeysay waxaan u maleynay albaabkii la qaraaci okay wal ful albaabka anaagna cid qaraacaysa okay iga tag waan cabsaday bay waa ilmihiisii yara oo ku ciyaaray معقول maaha wad kaftamaysa ilmihii raxo ka dhacay dhammaantii waad salaamantiin waxaan dib u soo celinay taxanaheennii ahaa muuqaalada ugu cabsada badnaa ee TikTok lagu baahiyey 7 bilood ayaa laga joogaa markii ugu dambeysay inaan soo gelino muuqaal kan la mid ah hawlwelina 7 bilood waxaa idin soo karinayay muuqaal ka xiisa badnaa kii hore ku soo dhawaada oo channelka subscribe saara videogana like saara toosna inoo geeyo muuqaalkeena ugu horeeya waxaan aaminsanahay in muuqaalkan lagu duubay kamera airka yacni waa safiix muuqaalkan wuxuu ku saabsan yahay nin galay dhismo cilla ilaa hadda waxaan garan laayahay dadka booqda meelaha cillada ama meelaha qadiimiga ama meelaha laga guurabay yacni isku daynay muuqaal ka soo duubaan kadib markay arkaan wax cabsi geliya qayliya maxaad doonaysaa inaad meesha ku soo aragtaan ma Cristiano mise Messi dad sabooyin inaad aragtaan wax idinka cabsiya sababtoo ah meelaha cillada ah ama meelaha qadiimiga badanaa waxa taga jima لا إله إلا الله محل قيلنا سلوك قادي قلكو صار في وعارف قف شيفا وقيليبا وربختي توشكا ودي بدو قبح حكا هردي وبالك عليك صون نقو حلا عباديسا دغي باد gashay inaan dhaga bilo in yar ban u jira qofkan aad meesha ku aragto waa bini aadan dhameystir waxa cabsi iyo dhibaato ah leeyahay meesha ku aragto qabca kaliya baluga kaliya laakiin se qofkan waa qof dhameystir laga yaabaa nin kale inuu yahay nin kala mid ah oo jecel inuu booqdo dhismayaasha qadiimiga kadibna markuu guriga yimid meel kasta uu baaray kadibna uu waxba ka waayo oo arkay meesha sare iska taal kadibna isagoo daalan oo iska jiibsaday halkaana ay hurdada kula tagtay caadi wuxuu ku qayliyay dhammaan dabaqyada qayladu lahayd qaylo hoose qaylo dhexdhexaada qaylo sare inta wad yeelaysaa buu ku leeyahay kan qasiya fiidiyoogani runna uu noqon karaa beenna uu noqon karaa bal adoo soo qiimee oo fikirkaaga ka soo dhiibo commentikana ku soo qor okay aynu gudubno muuqaalkeena xiga walaashay waan jeclaan lahaa inaan ku caawiyo laakiin se ma fahmin waxaad ku hadlayso waxaan u malaynayaa inaad ku hadlaysid Ruushiyaan sidaad ogtahay aniguna waxaan ku hadlaa Soomaali English Arabi Faransiis iyo Talyaani marka intaan garanay way dhaaftaan iska daawan maxaa kugu dhacay waxaan bini aadam iyo xayawaan u kala garan waayay oo qoob ka ciyaaraya ayay aragtay وما حد صوت أي سلمة فلان أو قيل ذي يضو وحدو بيسا أنا كل شيء سيربي واحد جرتي شكذا أوكله waxa ku noolayd gabadh maanka ka xanuunsanaysa adoo wax ka yarasiya waxaan u rajeynayaa caafimaad marka ay saacadu gaadho 12 habeenimo ee la kala seexdo gabadhani ma ay seexan jirin dibadda ay soo bixi jirtay dabadeedna wadooyinka dhexdeeda ay qofka ciyaarkaas oo kale ku sameyn jirtay si kastaba ha ahaatee qof kasta oo xilliga dibadda u soo baxa arkana iyadoo qofka ciyaarkaas sameynaysa iskuna dayo inuu la hadlo ama uu u yeero way u dhameyn jirtay buras من إلى هون صامر العالم يا الله دعدني waxay ku faaftay Serbia waliba waxay aad u socotay 2019 imanka meelaha waxa ka soo wareegay 5 sano inay fiicnaato imanka Rajenia waan ku salaamay hadii aad muuqaalkan daawanayso laakiin se dad badan ayaa sheegaya arintani in ayna kaftan ahayn ee ay dhabtahay anigu kama ogi war sax ah laakiin se waxaan ogahay in ay Yurub ka dhaceen dilal badan oo taxanaha oo lagu saleeyay gabadha mid kamid ah dadka caanka ka ah TikTok ayaa muuqaalkan soo dhigay isagoo ku soo dulqoray iska jira nimayo waxaan gaarnay mid kamid ah muuqaaladii ugu yaabka badnaa maraba inaan sheego waxa ka dhex dhacay muuqaalka sababtoo ah ninkii ku jiray muuqaalkan ayaa inoo waramaya ee aynu wada daawano oo aynu dhageysano
So I think probably the creepiest thing that's ever happened to me just happened. When I woke up this morning, my phone said that my storage was full, so I went to my photos to delete some, and the very first one was a photo taken last night of me asleep in my bed. okay saad hoosta ka akhrisanba ninkani waxa uu sheegay in mobilkiisu uu soo diray notification kaas oo ahaa in mobilkiisu uu buuxsamay ama storagekiisu in uu full noqday intaa kadib waxa uu isku dayay in uu mobilkiisa ka masaxo wixii aanu u baahnayn kadibna wuxuu toos u galay galerigiisa si uu dhiggareeyo sawiraanta aanu u baahnayn isla marka uu galerigiisa u galay waxa uu arkay in sawirkiisii ugu dambeeyay ee mobilkiisa lagu qaaday ay ahayd xalay goor xilli dambe ah waliba waxaana uu ahaa sawir isagoo oo hurda laga qaaday waliba sawirka sida looga qaaday midii sheega yacni waa uu hurday sawirka tusha laga keenay kadibna sidaas loo sawiray laakiin ma garanay sababta uu la cabsanayo isagoo hurday sawirka laga qaaday waxa ka qaadi karta xaaskiisa aabihii hooyadii walaaladii qof kasta oo gurigaas jooga And the creepy part is I'm home alone with my 10-month-old daughter. My wife's been out of town. ha sax waxaad la nooshahay inantaada xaaskaaguna waxay joogtaa magaalo kale waxa laga yaabaa inantaadaasi inuu ilaahay u barakeeyey dhararka kadibna ay soo toostay goor habeenimo ah kadibna ay ku aragtay oo hurda kadibna ay iska jeclaatay in ay sawirka ka qaado iyadunba kaa qaaday cid kale kaama qaadintay There's no way that my 10-month-old could have taken the photo because oh shit oo inantiisu waa yartay oo yaa ka qaaday markaa sawirka sidee wax u jiraan markaa bal aanu eegna sawirka laga qaaday waxaa cad in qof taagani uu sawirkaa ka qaaday sidoo kale wuxuu muujinayaa sawirkaas in la qaaday labadii habeenimo eega saaxiibeel siduu u faraxsan yahay hurdo wacan buu seexday marka uu soo kacayna maskaxdiisa uu iska lahaa allah maanta hurdada macaaniga maanta maalintaydu maalin wanaagsan bay ahayd kadibna mobilkiisu soo qaaday buf maalintiisi baa ka xumaatay talada ugu fudud baan ku siinaya guriga iska iibi kana carar tag magaalada ay xaaskaaga ku nooshahay una tag lana noolo maxaa ka wanaagsan noloshaas lamaanaha fideogan hadda hayno waxaa soo dhigay tiktoker muuqaaladu badanaa soo dhigaana waa qaar ku saabsan saaminta godadka iyo meelaha daahsan waa muuqaalo ku ridaya cabsi qalbijab iyo anfariir laakiin waxay soo jiitay muuqaaladiisa muuqaal ka mid ah ee bal aynu wada daawanno قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم لكن سوى وحن مذوبي وحن بني آدم بقى بيسوي وحكله بسم الله أعوذ بالله يمه ها saxalkan waa wuxuu ku soo qoray waxaan rabnay inaan badbaadino qof oo jinni gubay kadibna waxaan bilaabnay inaan quraan ku akhrino يي شوفوا la ilaha illa allah muhammad rasuulullah waa muslimkayga ahway ducadan xilligan oo kale akhrisan jiray maxayna wuu ilaabay subhanallah war waxaan dhaafi ma daawan karay muuqaalkan aan hadda hayno waa muuqaal ku faafay TikTok oo viral noqday markaan ku leeyahay viral ma aha inay boqolkiiba oo kaliya daawaday ee waxa daawaday dad ka badan 7 milyan oo qof si kastaba ha ahaatee waa maxay sheekadan muuqaalkan viral ka noqday waxaa jiray nin lagu magacaabi jiray Altas oo deganaa guryaha ka baxsan magaalada California gurigaas in badan oo uu ku noolaa ninkaasi waxaa ku soo weerari jiray jimin dabadeed markii uu dul qaadan kari waayay oo uu qoys ka istaagay jiminkaas ayaa ugu dambeyntii waxa uu go'aansaday in uu gurigaas kaba guuro gabi ahaantiiba waxa uu sii meeshani joogitaan male wax allaale iyo wax kugu hareena ma jiraan run ahaantii alaabtiisii oo dhan buu xidhay laakiin intii uusan bixin ka hor ayaa waxa uu go'aansaday in uu teleefankiisa saaro meel yar oo gees ah si uu u sii duubo waxaan gurigiisa ka dhex dhacaa mar waliba teleefankiisii buu la soo baxay kadibna duubistii ayuu bilaabay okay sidaad hadda aragtaan wax walba way wanaagsan yihiin ilaa iyo aan aragno wax la yaab leh oo ninkan daba socdo marka uu jaranjarta sii korayo ninkii ayaa u dhaqaaqay dhankaas iyo jaranjarta aad uga feeso buf 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 haddaba eeg halkaas mucjisada ah ee ninkan dabaqa sare u sii raacay waxaani waxa uu eegyahay xayawaan sababtoo ah wuxuu u ekaa mid ku socda 4 lugood ma aha 2 lugood waa nolol la yaab leh runtii aan sii wadana daawashada bal albaabkii ayaa isfuray yaana soo boqday talo xilligan yaab haddana albaabkii maxaa xidhay waxaa laga yaabaa inuu arkay teleefankaas oo ori oh shit waxaan rajaynayaa in aanu qofnay arag kadibna uu baxay hawlwelin dhammaantiin waan ku aragnay
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه أنا قريان لها ساعة أما حلقاس والله ما تحتاج نادي أنت أنك عران فرحنا وتور لها